بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij aynu u bixinay kasmo iyo kaskaaga kaas oo qaybtiisa koowaad maanta aynu bilaabi doono. kasmo iyo kaskaaga waa barnaamij aynu kaga hadli doono haddii alla idmo hadba waxaynu isnidhaa waa loo baahan yahay in laga hadlo oo faa'iido ayaa ugu jirta bulshada. barnaamijkeena maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa haddii alla idmo laba arrimood oo aynu isleenahay qofka aadamaha ah waa u muhiim inuu fahmo, oo haddii uu fahmo macnaha waa qof noloshiisa fahmay. waxa kale oo aynu barnaamijka kusoo gabagabayn doonaa maansada magaceeda la yidhaahdo duug. laba su'aalood qofka aadmiga ahi haddii uu jawaab saxa u helo waxa la odhan karaa waxa uu qaadi karaa ama hayaa ama heli karaa jidka saxa ah ee noloshiisa. su'aasha koowaad waxa weeyaan maxaad u nooshahay? haddii qofku garto waxa uu u nool yahay waxa aad noqonaysaa ama aad noqon kartaa qof hadaf leh, meel uu u socdo oo uu beegsanayo oo uu doonayo inuu ka gungaadho qof leh. haddii aad hadaf yeelatana waxaad yeelanaysaa qorshe. qofku hadduu hadaf yeesho inuu qorshe yeeshaana waa khasab. haddii aad qorshe yeelatana waxa aad yeelanaysaa waxqabad ama dadaal baad yeelanaysaa. macnaha qofku markuu hadafkii yeesho ee uu hadafkiisii sidii u gaari lahaa qorshe u sameeyo markaa waxay noqonaysaa inuu ficilkii ku dhaqaaqo kaasoo noqonaya waxqabad oo ah dadaal. marka dadaalka saddexdaasunbaa qofka faran, awooddiisu halkaa ma dhaafi karto, dadaal ma dhaafi karto, waayo isagu guusha ma goyn karo oo wax isaga ku xidhan maaha guushu, laakiin isaga waxa ku xidhan intaaynu soo sheegno dadaalku ugu dambeeyo. hadafkaa uu yeeshay sidii uu ku gaari lahaa dadaalkeeda inuu la yimaado ayuunbaa qofka faran, awooddiisu intaasay ku egta. laakiin guushu inay timaado iyo inaanay iman wax isaga ku xidhan maaha. waxa aad u nooshahay inaad garato se waxay ku xidhan tahay waxa aad aaminsan tahay. haddaynu sii yara faahfaahino qofku waxa uu aaminsan yahay, tusaale ahaan dadka adduunyada ku nooli laba shay bay raacaan. labadaa shay baana hadafkooda go'aamiya. qof waa adduunye raac, marka waa qof macaash doona, adduunka macaashkiisii buu raadinayaa. marka waxa hagaya ee wuxuu go'aaminaya waa halka uu macaashka ka helayo. qofna waa diin raac, marka waa ajardoon, marka isagana go'aanka uu qaadanayo iyo hadafka uu yeelanayo iyo qorshaha uu u samaysanayo iyo sida uu ugu dadaalayo intaba waxay ku jaan go'naanaysaa oo ka shidaal qaadanaysaa waa diintiisa. arrinta kale ee lama huraanka ah ama lagama maarmaanka ahi iyana waxa weeyaan inuu qofku garto waxa xilkiisu yahay. qofku haddii uu garto waxa xilkiisu yahay waxa uu garan doonaa ama uu garanayaa waxa uu qabanayo, macnaha waxa ay tahay inuu qabto ayuu garanayaa. hadduu garto waxa uu qabanayana waxa uu garanayaa sida uu u qabanayo. waxaa sida uu u qabanayo ayuu garanayaa ee waxa uu u fulinayo. waxaa kaloo muhiima oo qofku haddii uu xilkiisa garto uu isna garanayaa xadkiisa. qofka xadkiisa awooddiisu halka aanay dhaafi karin ayuu garanayaa.
xadkaasi labuu noqon karaa mid qofka awoodiisu soo xadeysay ama mid sharci soo xadeeyey macnaha ama awoodiisa ayaa xad u samaynaysa aanu dhaafin ama sharci ayaa xad u samaynaya aanu dhaafin marka qofku haddii uu noqdo qof sidaa u fahamsan xilkiisa oo u garanaya oo xilkiisu sidaa ugu qeexan yahay marka wuxuu noqonayaa qof garanaya hawsha u taalla iyo siduu u gudanayo iyo hawshaasi xadka ay leedahay ee aanay dhaafi karin marka qofka aadmiga ahi haddii uu jawaab saxa u waayo waxa uu u nool yahay iyo waxa xilkiisu yahay ama uu fahmi waayo waxa uu nool yahay iyo waxa xilkiisu yahay waxa uu noqonayaa markaa qof haya jid meesha uu geynayo aanu garanaynin macnaha qofkaas wuxuu hayaa jid aanu garanaynin meesha uu geyn doono haddiise qofku noqdo qof fahmay waxa uu u nool yahay iyo waxa xilkiisu yahay waxa uu noqonayaa qof garanaya jidka uu hayaa meesha uu geyn doono qofku haddii uu garanayo jidka uu hayaa meeshuu geyn doonana taasoo ah meeshii uu ka filayay rajadiisa runta ah inuu ka heli doono isagoo oo ku faraxsan marka guushaadu waxay ku xidhan tahay meesha aad u socoto iyo jidka aad u marayso farxaddaaduna waxay ku xidhan tahay rajada aad leedahay ee aad ka sugayso inaad hadafkaaga ka gaadho iminka iyo haatanna waxa aynu soo gaadhnay qaybtii labaad ee barnaamijkeenna iyo maasadiidu waxay tidhi bulshoy noloshu waa daacadiyo dowga tooska ahee dariiqada xaqiiqdiyo runtay doorku noqotaye isku duubni iyo wadaajiriyo wadamiir xalane kuma daraarto xeer iyo shar iyo dudsi iyo exe deelqaafku wuu weeciyaa deeqda nololeede dib u dhac iyo hoog baa ku jira dulmi laysfaroye digtoonaada xaajadu marbay daaman leedahay naftada linkii maalin bay derejo weydaay duwanaha naflaydii xaqay dacalka dhaftaye digashada marbay dheefsataa kibir dhiclaysaye sangeheeda doolaalka badan waxay ku dushaaba waxay damaacasi raaratoosi durduurisaaba waxay malaabka doocaan heshoosi dunduumisaba deebaa qadhaadhiyo marbay dacarka leeftaye digtoonaada xaajadu marbay daaman leedahaye naftada linkii maalin bay derejo weydaaye doqonnimo waa shile marbay kula dawaftaye dariiqada marbay ka dudaa dalow ku sartaye dayradag intay kugu xidhay kugu duubaysaye markay libinta ka daadisay kugu digataye dabinkeeda ruuxii ku dhaca way ku duubataye diriic waa ka dheeryahay ninkay duubi jeebisaye digtoonaada xaajadu marbay daaman leedahaye naftada linkii maalin bay derejo weydaaye dedefaynta iyo beenta waa lagu dullubaye dar ilaahay wixii aan ahayn duka hadhi waaye dalinimo masii raaridnoo dushay ninkeediye dalluunteeda kama soo baxaan kuway ku dugtaye damqashaduna way laalan tahay goorta laystahoye ma difaaca maalkuba qofkii waya soo dumaye digtoonaada xaajadu marbay daaman leedahaye naftada linkii maalin bay derejo weydaaye
dood maan jeclaysane cabdoo wajib bay diraye xilka duudka ii saaran baan doji leeyahaye damacaygu wuu dhaafsan yahay dunya iyo male nimaan magacu dudin baanahoo daydayo ahayne deeqaha ilaah ba igu filan oon dalbaanayaye doodaydu waa waanadee geli duubaqaga oo dabuubtan gaadhsii bulshada dahabi weeyaane dayac bay la gabangaabsatee dulucduyay dhaafin deganaan u fahamsii murtidu malaha dulduule deganaan u fahamsii murtidu malaha dulduule. maasadii intaas ayay inoogu dhammaatay. barnaamijkan waxaan inooga soo diyaariyey buugga la yidhaahdo jidka qoyska. intaas baynu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii kasmo iyo kaskaaga qaybtiisii koowaad. inta aynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan, waa anigoo maxamed kaysa oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ka baro buugga jidka qoyska, toosinta waalidka, barbaarinta carruurta, tiirarka farxadda, tiirarka khilaafka, tiirarka xalka iyo waxyaalo kaloo badan. haddaba buugga jidka qoyska gurigaaga ha yaallo. wixii oori wareertiiyo odayaashii asqoobay markay buuggan arkaan asraarkii dhex yeeliyo umalkii kala weeshay, haddii eebba idmo islaantuu ka bogsiinoo odayguu ka bogsiinoo ubadkuu ka bogsiine aqalkaaga ha yaallo buugga jidka qoyska. jidka qoyska. haddaba wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir taleefanada shaashada kaga muuqda.